Soomaaliya iyo maamulka deegaanka Soomaalida Ethiopia waxay dadku inta badan ay ka fiirinayaan imise qof baa ku dhimatay iyo deegaanka lagu dagaalamayay yaa hadda gacanta ku haya waa labada aragtiyood kaliya oo ay dadku isweydiinayaan Soomaalida meel walba joogan laakiin waxaynu u baahanahay inaynu meelo badan ka fiirino si aynu u fahanno dagaalkan maxaa ka iman kara mustaqbalka dhow waxaan idin sheegayaa markii aad dib u fiiriso farsamooyinka ay ururka al-shabaab ay isticmaalaan waxaa muuqata in dagaalkan uu yahay mid uu ka dambeeyo qorshe lagu doonayo markaas in ciidamo badan Ethiopian ay soo galaan gudaha dalka Soomaaliya markii aynu dib u fiirino farsamooyinkii ay al-shabaab isticmaalayeen muddooyinkii la soo dhaafay oo dhan waxaad arkaysaa mar walba oo ciidan badan ay dalka yimaadaan oo amisom oo dalalka dariskana ka yimaaday waa marka ay awoodda al-shabaabna kor u kacayso isla markaasna ay dhaqaale badan ay helayaan oo ay kobcayaan way siday u kobcayaan way marka su'aasha laga yaabo in isweydiinaysa al-shabaab mar walba oo ciidamo badan ay dalka soo yimaadaan oo African Union runtii waxay dadka ka dhaadhiciyaan inay tahay xilligii la jihaadi lahaa isla markaasna waxay shaqaalaysiiyaan dhalinyaro badan oo Soomaali waxayna aruursadaan lacag aad u fara badan markaas loogu yeeray magaceeda inay cashuur tahay al-shabaab waxay mar walba jecel yihiin inay la dagaalamaan ciidamada Afrikaanka ee dalka jooga ma jecla inay ka hor yimaadaan dadka Soomaalida ama ciidamada Soomaalida sababtuna waxay tahay way adag tahay markaasi in dadka lagu baraarujiyo Soomaalida in Soomaalida ka la dagaalo isla markaasna ay jihaad tahay Soomaalida waxay jihaadka markaasi ay u dhagan nugul yihiin oo dhalinyarada lagu kicin karaa waxaaba ahaan dabka loogu shidi karaa waa in markaasi la tuso ciidamo ajaaniba oo dalka soo galaya sida daraadeed marka al-shabaab mar walba oo ay doonayso inay dhalinyaro badan ay shaqaalaysiiso iyo inay lacag badan oo baada ay ka qaado shacabka waa inay ka shaqaysaa inay ciidamo ajaaniba oo badan ay dalka yimaadaan waana sababtan isleeyahay way u weerarayaan Ethiopia ama maamulka deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa kale oo muuqata ayaduna oo aan la dafiri karinin in qorshayaasha noocaaya ay al-shabaab ay sameeyaan iyo rabitaanka ama danaha dawladaha dariska in marar badan ay u muuqdaan kuwa isku dhari lagu karinayo ama si kale hadaan u dhigo waxaan mararka qaar koodana aynu arkaynaa in al-shabaab iyo dawladaha dariska aynu nahay inay isku dan yihiin oo dantoodu ay mararka qaar kood ay israacaysa ayanu arkaynaa maxaa kamid tusaalayaal baan isleeyahay 2011 markii ciidamada Kenyaanka ay dalka soo galayeen Soomaaliya maalmo ama bilo ka hor waxa si weyn Kenya uga dhacay afduubiyo iyo dilal iyo weeraro qorshaysan oo ciidamada al-shabaab ka geysteen gudaha Kenya waliba dhinaca NFD kadib bay ciidamada Kenya ay soo galeen Soomaaliya markay Soomaaliya soo galeenna ciidamada al-shabaab way ka leexdeen mana aysan hor istaaginin ilaa ay Kenyaanku ka tageen magaalada Kismaayo kadibna ay bilaabatay arinta la isku qabsanayay badda iyo dacwada badda su'aasha marka isweydiinayna maxay tahay marka waa maxay sababta al-shabaab ay nimankaas u weerareen iyo waa maxay sababta ay Kenya ay u soo galeen hadii al-shabaab ciirsanayeen maxay al-shabaab ula dagaalami waayeen qorshihii marka ay ku soo galeen wuxuu u muuqday in markaan albaabkooda la gargaraacay oo ay soo galeen kabacdina ay danahooda fushadeen ay u muuqataa waayo lama aysan dagaalin kuwana way ka leexdeen kuwana ma aysan raacdaysan ama aysan dabagelinin si u sii ordayeen ay fariisteen magaalada Kismaayo kadibna qorshe kale ay dalaceen oo inay badda Soomaaliya ugu qabsadaan tusaalaha labaad waa weerarkii ay Kampala ku qaadeen ururka al-shabaab 2010 kadibna waxa dalka aad u soo galay oo la soo kordhiyay ciidamadii Ugandiska ee dalka joogay Ugandiskii markay dalka yimaadeen la filayay in al-shabaab la dagaali doonaan oo ay carcar leeyihiin way iska seexdeen goobahooda fariisteen kadibna mushaar bay iska qaateen sidoo kale waxa arkaysaa weeraro inay ku qaadeen dalkaasi Djibouti 2014 ururka al-shabaab kadibna la soo kordhiyay ciidamadii Djiboutiyaanka ee joogay dalka oo lagu soo daray kuwa kale oo badan ayaguna ma aysan dabagelinin al-shabaab wax dagaal lama aysan gelinin isla markaasna mushaarkooda iska qaateen waxaad arkaysaa marka in al-shabaab ay doonayaan in ciidamo badan Soomaaliya la keeno si ayaguna taageero u helaan lacagna u helaan
qorshuhuna uu noqdo mid sii xogeystay aan dhammaanin maadaama dowladdii hore ay ka shaqaynaysay in qorshahan la dhammeeyo waana sababta aan markii hore muuqaalka bilowgiisa idin iri weerarkay al-shabaab ku qaadeen deegaanka Soomaalida waa qorshe lagu doonayo inay ciidamo badan oo Itoobiyaan ah oo caraysan ay u soo galaan gudaha Soomaaliya si ayaguna ay ciidan badan u helaan oo Soomaali ah isla markaasna dhaqaale badan u helaan qorshihii al-shabaab lagu wiiqayay ay dowladda cusub waday iyo kuwii amisom lagu saaray iyo waxa dhanna marka dib loo soo bilaabo waxaad moodaa marka si dhab ah u fiiriso in al-shabaab iyo nimanka loo yaqaan dowladaha dariska ah waxa ay cayaarayaan ay tahay cayaartii la oran jiray Tom and Jerry yaanyuurtii iyo dooligii kartoonka is cayrsan jiray cayaarad moodo ayaa meeshan ka socota waxay mar walba al-shabaab sameynayaan inay dowladaha dariska weeraraan ka bacdina ciidamo badan bay keenayaan oo dalka la keenaya si ayaguna mushaar badan u qaataan ayaguna al-shabaabna ee dhaqaale badan iyo ciidan u helaan waa win weeye inay saas la sameeyo labada kooxood ba markaasi waxa uu jira faa'iido aad u weyn marka arintan waan soo celceliyay waa meel badan ka fiiriyay saddex mid bay ay noqonaysaa ama ay tahayba weerarka halka ka dhacay iyo wax ka dambeyn kara iyo wax la fili karayo saddex mid u bay noqon doontaa waqtigaas sheegi doona mid ugu horeysa waxaan isleeyahay waxay noqon karaysaa in al-shabaab iyo dowladaha dariska ah ay yihiin kuwa heshiis ku ah in meeshaan la iska sii biisho dalkan iyo dadkaana la iska haysto intii la haysan karayo waa qorshaha koobaad oo ciidamada lagu soo badinayo mar walba qorshaha labaadna waa in al-shabaab ay yihiin niman fahamay istaraatiijiga ay ku keeni karaan ciidamo badan oo ajaanib ay dalka ku iman karaan oo ay shacab badan ku haayari karaan oo ay dhaqaale badan ku heli karaan oo dagaalku uu ku sii socon karo oo ayaguna ay ku sii dagaalami karaan inay tahay fahmeen marka ciyaartu dhammaan rabtaba ay dowladaha dariska markaas ay weerarayaan waa qorshaha labaad qorshaha saddexaadna waxaan isleeyahay waa in la kordhiyo ciidamada amisom oo la kansalo wixii ATMIS la oran jiray dibna loogu laabto amisom ciidamo badanna markaas la keeno oo markaas ay arrimahanba ay qayb ka yihiin midowga Afrikaanka iyo dowladaha ay mataqaan Afrikaanka ee dalka jooga saddexdaas waa mid waa in heshiis arrinta lagu yahay waa dowladaha dariska iyo al-shabaab iyo in al-shabaab ayagu ay yihiin niman fahamay ciyaartaan oo ayagu marba bedeli karaya iyo in markaasi la doonayo in ciidamada la soo kordhiyo oo qura inay tahay markaa oo u laabanaysa inay markaasi ay heshiis yihiin saddexdaas aragtiyood mid kamid ah baan aaminsanahay inay ka dambayso waxa hadda Soomaaliya iyo xuduudda Soomaaliya iyo maamulka deegaanka Soomaalida ka socda maxay kula tahay adiga bal nala wadaag aragtidaada markii aad qiyaasto oo aad analyze garayso maxaa keeni karaya xilligan dagaal maxaa dagaalkan ku soo beegay isqabqabsiga dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya xilli